xuska maalinta biyaha adduunka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda biyaha Galmudug oo kaashanaysa wasaaradda biyaha federaalka ayaa lagu qabtay Dhuusmareeb waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka Galmudug madaxa xukuumadda labada gole ee dawladda iyo bulshada rayidka ah wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Axmed Shiraf Faragla ayaa sheegay in wasaaraddu ay qorshayaal looga hortagayo abaaraha iyo biyo la'aanta ay sameysay marka waa garan kara in biyahaas culays badan iga saaran yahay waxaan rabaa inaad kugu bishaareeyo hadda reer Dhuusamareeb baan ka bilaabay mar walba markii roobku doo oo barwaaqa dhacdo daad baa qaada oo guryaha galo dukaamada galo qasaare soo jeedi magaalada geeskeeda meeshii biyo ku imaan jireen waxaynu kaga xiriirnaa marka juul la gaaro biyo xireen weyn oo beeraha ku falataan oo xoolaha ku dhaqataan ugana nabad gashaan quruxda magaalada iyo tacadiyada ay ka geystaan biyo waxa sahan lagu sameeyay 20 barood oo Galmudug kamid ah oo bisha Juun ka bilaabi doona biyo xireen waaweyn hadaa taqiineen xulfooyin iyo baliyo yar yar oo hoos loo qodo waxa idin ku soo socda qofkii noloshu ku gaadho biyo xireen waaweyn oo waxa loo yaqaan dhaamamka ah oo webiyaal u dhigma kuwaas oo aad ku manaafacayn doontaan dad iyo dunyaba hadii la haydo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxa xukuumadda Galmudug ayaa dadka reer Galmudug ugu baaqay inay ku xamdiyaan nimcada ay ka mid yihiin biyuhu waa la siiyay aysan isku dagaalin biyaha waa wax qaali ah wax aad u qiimo badan weey Ilaahay subhanahu wa ta'ala basharka bani aadamka waxa Ilaahay ka abuuray asalkiisa ciida markii uu nabigu tilmaamay alayhi salatu wa salaam kullukum min aadam wa aadam min turab dhammaantiin ilma aadam baatiin buu aadamna xaguu galo ku abtirsaday turaabo ka ahaado turaaba laga abuuray iyadoo jira xilli abaareed xoolaha iyo dadkuna ay u dhimanayaan haraad ayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa uu sheegay in ceelal biyoodyo cusub laga hirgelinayo deegaanada biyo la'aantu ay ka jirto adduunka shidaalka waxa ka daraan doona biyaha la raadiyo anaga hoosteena webiyaal baa jiifa mana ogin waxa loo baahan yahay wixii noo soo socdana Ilaahay ha noo keeno waxaan haysanaa aan dhaqaalaysano biyahana hal la ilaaliyo biyaha laguma ciyaaro ceelashii solar baa laga dhigay motor dabo qabqab lama jiro ceel kale badan waa la qodi doonaa dhaaman baa la sameeyaa sida wasiirku sheegay dhanka kale madaxweyne Xaaf ayaa baaq u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka soo baxay dhufaysyada waayaha waxaan maqlaa ciidamada dhufays ka soo baxay oo xamar ku soo laabtay anigu ciidamadaas waxaan ku wargelinayaa oo ka codsanaya inay joogaan difaacooda dadka madaxda ay malaha dalka haddii difaacu xumaaday anigu waa soo joogay iyadoo difaacu xumaaday oo magaalada xamar dhinaca kale u rogbatay dad baa ila joogay xamar magaalo yar maaha haddii fowda ku bilaabatana waa dhimanaysa madaxda federaalkan waxaan u soo jeedinayaa inay shaqalada iska tiiriyaan ummadda ilaaliyaan oo ku celiyaan meelahooda ciidamada intaasi waa iga fariin Nafisa Xirsi Maxamuud Universal TV Dhuusmareeb